Suldaan Ibraahim Dacar Yuusuf oo ka mid ah madaxda dhaqanka ee Somaliland oo maanta qayb ka mid ah warfidiyeenka ugu waramay magaalada Boorama ayaa madaxweynaha Somaliland ugu baaqay inuu dib u furo dastuur si xal looga gaaro tabashooyinka ay tirsanayaan beelaha la haybsooco iyo guud ahaanba beelaha tariifyada ee Somaliland. waxaan halkan baaq ugu dirayaa iyo fariin madaxweynaha Jamhuuriyadda Somaliland mudane Muuse Biixi Cabdi mudane madaxweyne waxaan ku leeyahay Somaliland dhinac bay ka raran tahay dhinaca ay ka raran tahayna waxa ugu wacan waa dastuurkana horta aayad quraana maaha oo aan la taaban kareynin dastuurka markii la sameeyay maxamed xaaji ibraahim cigaal madaxweynihii dhinta Allah u naxariistay ninka Suudaaniga uu yeeray dalku intan ma leekeyn dadkuna intan ma leekeyn maanta 10 jeer buu ku laban laabmay dadku dhulka iyo dhismuhuna 20 jeer bay ku sii laban laabmeen marka waqtigii dastuurka la qoray lama joogo ninka Suudaanigiina dalka iyo dadka iyo dhaqanka midna ma garanaynin sidoo wax u qoray iyo keentay inuu maanta dhinac ka rarnaado dalku oo dastuurku ugu wacan yahay waxaan ku leeyahay madaxweyne dastuurka furmarka wareysa si awrku hadii uu dheeliyo waa la tu'iyaa waana si fiican baa loo raraa si aanu mar dambe u dheelin waxaan ku leeyahay dastuurka fur saamigan lagu hadlayo si fiican oo cadaalada ugu qaybi dalka wax si taariikhdaaduna ay u noqoto taariikh qoraalka gasha oo lagu xasuusto oo la yiraahdo waa sharciga oo madaxweyne Muuse Biixi sameeyay anigoo ka hadlaya dhinaca kalena Suldaan Ibraahim Dacar ayaa sheegay in Somaliland ay saamiga ku leeyihiin beelaha la haybsoocay guud ahaanba Somaliland ay ka dacweynayaan beesha caalamka iyo qaramada midoobay sidoo hadalku u dhigay beelahaas way dulman yihiin asal buu 30 sanadood yaanu shacabku garaacayna Somaliland ha noolaato Somaliland horaa u socoto Somaliland ha guulaysato waxaan ku qabnaa ma jirto waxaan ku qabnaa gumaysi iyo xaqiraad waxaan leeyahay maanta taa ma ogolaanayno 30 sanadood wax ka badan inaan saa ku sii noolaanee inaad annaga saami qaybsi noo furto oo noo sharciyeyso maadaama aanu gobolada iyo degmooyinka oo dhan deganahay oo aan cid soo saari kareynin inaad saami qaybsi noo samayso oo aad kooto noogu xidho 6 gobol 6 libaan degmooyinkana golayaasha deegaanka laba aad noogu xidho wasiiradana 4 wasiirad noo siiso intaasaan rabnaa inaad kooto noogu xidho madaxweyne haddii ay taasi dhicigood kooto noogu xidh weydo annagu ay tamina mayno dagaalamina mayno dawladana ceebayn mayno laakiin beesha caalamkan ka dacwoonaynaa jamciyadda qurumaha ka dhaxaysan ka dacwoonaynaa hay'adaha xuquuqal insaankan ka dacwoonaynaa oon leenahay Soomaaliland waxay noqotay meel gumaysi dadka lagu gumaysto waxaan leenahay beesha caalamka soo farageliso gumaysiga lagu hayo beelaha gabooye dhinaca kalena Suldaan Ibraahim Dacar Yuusuf oo ka mid ah madaxda dhaqanka ee Somaliland oo ka hadlayay tabashada gobolka Awdal ee dhinaca saami qaybsiga ayaa si gaar ah u hadlay qaar ka mid ah madaxda dhaqanka ee gobolka dhinaca kale gobolada cabanaya gobolka Awdal waxaan leeyahay waxa ka maqan si cadaalada madaxweyne ugu garsoor madax dhaqameedka reer Awdal waxaan leeyahay maalintii haldoor joogtay waxaan idin yiri waar wax qora wixii aad ku kalsoon tihiin idin raali galinayo qora oo saxiixa dabeedna la taga madaxweynaha la taga waa iska diideenoo waa tagteen waxa idin ka soo baxayna waa waxaan markii hore ka digayay idinku is dhabar jabiseen marka waxaan leeyahay dib isku noqda waxaan taaganahay ninkii yiri sadohdii maradu ka beelasantaa arkay yiri sadohay fadhiga uga noqo madax dhaqameedka reer Awdal waxaan leeyahay waar fadhiga uga noqdo is aamino oo wax aad heshiis ku tihiin samaysta haddayna taasi idinka suura galin war dhalinyaradii aqooyinkii baa diyaarahay
ku wareejiye xilka iyagu gobolka iyo wixii naga maqan baa raadiyaan madax dhaqameedkana sidaasaan leeyahay aad iyo aad baan ugu boorinayaa aad baan uga xumahay arrintaa madax dhaqameed ka soo baxday madaxweynaha hortiisa haddana miidiyaha isku marinaysiin haddaan reer hebelnahay iyo haddaan reer hebelnahay war fadhigaa fadhi uga noqo madax dhaqameedka Samaroonow. Cabdirasaaq Cumar Micadawliyo telefishinka codka bariga Afrika Boorama.